بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي وما تسكله سبحانه وتعالى وبعدين وحان مهدقار وعلينيا مناسبة قيمها إيقايها بدن dadka kasoo qayb galay ururka haweenka odayaal dhaqameedka waxgaradka aqoon-yahanada iyo dhammaan dhalinyarada waa mahadsantihiin waxaad ku mahadsantihiin waqtiga dheer aad maanta taagnaydeen qoraxda aad u dabaaldegaysay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud runtii madaxweynaha xalfadan waa xalfad lagu maamuusayo waxayna ku faraxsan dhammaan dhalinyarada soo dhaweyntaada anigoo ku hadlayo dhalinyarada Northeastern afkooda gaar ahaan dhalinyarada taageersan xisbiga UPD saddex xaro dadaab runtii madaxweyne aad bay ku taageersan yihiin dhalinyarada wayna ku soo dhaweynayaan waxaa dad madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya ugu horeeyay ee soo booqday xarooyinka dadaab tagay ifo oo u kurogalay xaaladaha kala duwan ay ku nool yihiin dadka joogo Kenya gaar ahaan xarooyinka dadaab ee noloshooda u kurogalay runtii waxaad ahayd madaxweynaha kaalin libaax ka qaatay qalbiga dadka ku nool Kenya runtii aad baan kugu mahadcelinaynaa waxay nagu noqotay mid aan ilaawi karin waxay nagu noqotay waxayna gelisay dhiirigelin in dal aan leenahay uu jiro waxaan ogaanay inuu jiro madaxweyne ka damqanayo xaaladaha ay ku nool yihiin dadka ku nool xarooyinka dadaab runtii waxay tahay farxadaan ila weyn anagoo jecel la joogaaga runtii ilaahay uu noo soo kaciyay waxay noqotay markii labaad waxaan noqotay madaxweynihii 10aad ee Soomaaliya ee ku guuleystay mar labaad in loo doorto xukuumadda Soomaaliya kursi looga aramiyo ummadda Soomaaliyeed taasina waxaad ku noqotay runtii waxaad ku kasbatay aniga kara shariifnimadaada kaalinta shariifka aad ka qaadatay Soomaaliya dib u heshiisiinteeda nabadeynteeda odaynimadaada waxaad tahay nin wax badan oo experience leh khibrad leh runtii taasina waxay noqotay inuu ilaahay mar labaad uu guuleeyo inaad noqotid madaxweynaha Soomaaliya mudane madaxweyne waxaan anagu hadaan nahay anigoo ku hadlayo afka dhalinyarada Northeastern iyo kuwa ku nool xarooyinka dadaab waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya waxaa jiro fursado waxbarasho oo la siiyo dhammaan dhalinyarada wax ka baratay jaamacadaha Soomaaliya sidaas si la mid ah waxaan u baahanahay marka waxaa jiro dhalinyaro dhameysay dugsi sare waxaa jiro dhalinyaro aan helin fursado inay aadaan jaamacado ama awoodinba inay iska bixiyaan jaamacadaha waxaan rabnaa marka sidaas la mid ah helno fursadaha jaamacadaha Soomaaliya waxbarasho ee helaan deeqaha dalalka dariska la ah sida Turkiga wadamada noo dhow dariska la ah cilaaqaadka shaqo naga dhaxeeyo fursadahaas waa u baahanahay runtii waxaan u baahanahay dhiirigelinta madaxda Soomaaliya ay dhiirigeliyaan dhalinyarada ku nool Soomaaliya sidaas la mid ah waxaan u baahanahay dhalinyarada in la dhiirigeliyo fursadaha waxbarasho looga faa'iideeyo in madaxdooda ay soo xasuusato waxaan kugu amaanaynaa waxaa dad madaxweynaha ugu horeeyay soo xasuusto mar labaad iyo saddexaad waxaan ka rajaynaynaa inaad soo booqatid xaaladihii qaxootiga ee aad ku rugashid waxay tahay rajadeena inaan waxbarashada aan halkan ka baranay iyo qaarkeen waa jaamici qaarkeen waxay sameeyeen master qaarna waa PhD waxaan rajaynaynaa marka wixii aan baranay inaan dalkeena wax ugu qabano inaan dib oo la laabano inaan madaxda dawladda ku biirno inaan baarlamaanka ku biirno Soomaaliya haday noqoto kuwa maamul goboleedyada haday noqoto federaal rajadeenu aad bay weyn tahay mudane madaxweyne waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradii ka soo laabatay xirooyinka dadaab inay maanta maamul goboleedyada ku matalayaan qaarkood wasiirro ay yihiin qaarkood xildhibaan ay yihiin qaarkoodna ay yihiin agaasimayaal taasina waa wax lagu farxo waa baaqa ugu yaray diri kara marka dhalinyaradii qaxootiga ahaa muddada dheer 30 sano ku dhow ku noolaa xirooyinka dadaab 1991 ilaa hadda marka waxaan baaq ku soo jeedinaa madaxweyne hadaan nahay dhalinyarada ku nool Northeastern odaynimadaadii sida aad sheegtay oo Soomaaliya inaan dib loo celin erayadaadii waxa kamid ah Soomaaliya inay maanta u baahneen dib in loo celiyo madaxweyne ma rabna in Soomaaliya dib loo celiyo hadaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed xaq uma yeelan inaan system dawli ah oo nidaam dawli dhisan inaan ku dhalano ama aan ku barbaarno waxaan ka dhigta ka maqalnaa waxaa jirtay dawlad Soomaaliya ay lahayd muddo 20 sano jirtay nidaamkii markii looga sheekay runtii waan qiiroonaa laakiin anaga fursad uma yeelan waxaan ku kornay qax burbur kala orod iyo rafaad xaalado adag wax ku baranay waxaan rabnaa marka xaaladahaas adag waxaan ku baranay in ilmaha aan dhalayno iyo mustaqbalka jiilka naga dambeeyo inay helaan nidaam dawli ah oo marka aan ayaga ka sheekayaan ma ahan sida anaga aan rafaadka ugu kornay qaxa aan ugu kornay silac iyo rafaadka waxbarashada aan xaaladaha adag ku baranay sidaas oo kale in dhacdo mar madaxweyne waxaan u baahanahay in jiilka naga dambeeyo carruurta anaga aan dhalayno oo helaan mustaqbal laba idinka gaarsiin karo idinka Soomaaliya doorasho iyo qof cod gaarsiin karo noo soo gaabi dhalinyarada idinka qaxooti ahaan dawladdan rajada aad ka qabtaan iyo dawladihii hore waxay kaga duwanaan karto soona gaabi
وما سنتهاي رنتي وحن كقبنا رجوين دولدا مدحوينها ما دام وحسوستي قلبي يسوسون على هالمر يضو يجرت مدحك الرئيس أسيا إنه صوب وضع حريين كدلاب وقالوا تكونوا الحالات ضد دراسية وحن رجك لنا مدحوينها إنه صلاة مرلوات يمرسد حادبة ودلنيرada halkan joogto oo shaqo abuur u sameeyo si ay dalkooda dib ugu laabtaan ma dhici karto dalkii rafaad ka jiro oo wali la seesaysto ma jirto qof ay qalbigiisa ku soo dhacayso Soomaaliya ku laabto waxaan rabnaa marka madaxweynaha ka codsaneynaa inuu shaqo abuur u sameeyo dhalinyarada inuu soo laabto xaaladaha uu ogaado si dadka ay ugu dhiiradaan inay dalkooda dib ugu laabtaan 30 sano ka badan ama ku dhawaad ay dadka qaxootiyiin mana jirto intaas ka badan dadka qaxooti ahaan karo dadka dhan ku nool xoriyinka dhadhaab mujtamaca inta leeg musliminka waxay ku hami weeyeen ay rajadooda tahay maalin in dalkooda inay ku laabtaan waxaan rabnaa madaxweynaha ka dhabeeysid hadallada ah Soomaaliya in hore loo wado dib u laabasho Soomaaliya uma baahna xaaladda maanta la taagan yahay horena u socotaan rabnaa madaxweyne waan ku faraxsanahay soo laabashahada waxaan ognahay inaad tahay oday nabadeed inaad tahay oday way arag ah inaad tahay maanta in waxaad mudan lagu siiyo bilada nabadeed Soomaaliya sababtoo waxaan ognahay sida ugu dul qaadateen Soomaaliya in la gaarsiiyo doorasho ku soo laabato hoolka Efesoni mar labaad la qabto doorasho nabdoon waana xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay Ra'iisul Wasaare mahadsantahay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in uu dib ugu soo laabto xerooyinka dhadhaab fursadaha shaqo loo abuuro dhalinyarada kalsooni lagu beero dalkooda ay ugu laaban karaan si waxbarashada iyo cilmiga ay leeyihiin dalkooda ay ugu laabtaan